Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow Succeed Academy. Fadlan haddaad ku cusubtahay subscribe saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena dambe una sheer garee asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan. Maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeena labaad ee ku saabsan MS Word-ka. Waxaan cashirkii hore aan kusoo qaadanay MS Word-ka waxyaabaha loo isticmaalo, sida loo kaasho, sidaad uga laaban lahayd iyo sidaad qoraal u soo gashan lahayd. Maanta waxaan cashirkeena labaad aan ku qaadanaynaa 3 ciwaan. 3 ciwaan oo aad nooga caawinayo markaan anaga wax aan qorayno. Marka ugu horeyso waxaan soo kacsanayaa Word-kayga anigoo isticmaalaya shortcut-ka Window key +R kadibna aan run box-ka aan ku qorayo Win Word. Cashirkeena labaad ciwaanka koowaad waxaan ku qaadanaynaa How to select text by keyboard. Sideen qoraal aniga aan ugu select gareyn karaa anigoo isticmaalaya keyboard-ka. Marka ugu horeyso horta waxaan soo gashanayaa qoraal yar ayaan soo gashanayaa oo symbol ah anigoo ku soo gelinayo is equal rand. Qoraalka marka aan soo geliyo haddaan u baahdo inaan select gareeyo waxaan isticmaali karaa shortcut ah control ayaan qabanayaa plus waxaad la qabanaysaa A. Qoraalkaada waxaad aragtaa dhammaan hadda inuu wada select gareysmay. Ama waxaad samayn kartaa inaad cursor-kaada aad geyso halkaa kore ay sentence-ka ka bilaabato kadibna shift aad taabato ama shift aad qabato kadibna wixii ka hooseeya flat arrow down-ka inaad qabato saad u select gareyso wixii qoraalka ka hooseeya. Haddaa in yar aad rabto waxaad isticmaali kartaa right arrow flat midig ka jirto sidaas ayaad u soconaysaa. Haddii aad isticmaasho flat bidix ka jirtana sidaas u soconayaa. Flat hoos ka jirta haddaa isticmaasho hoos ay u select gareynaan. Sidaas la eg flat kore ka jirta up-ka haddaad isticmaasho qoraalkaada wuxuu u select gareysmaa si kore ilaa uu ku dhamaado meesha ugu dambeysa. Halkaas waxaan ku qaadanay marka ciwaanka koowaad oo ah sab u select gareyn qoraal kugu jiro ama kugu kaacsan MS Word-ka anagoo aan isticmaalayno 2 qaybood. Cashirkeena labaad ciwaanka labaad aan ka qaadanayno wuxuu yahay How to use sida loo isticmaalo delete and backspace. Labadan eer waxa loo isticmaalaa in wax lagu tirtiro laakiin qaababka wax u tirtirayaan ayaa kala duwan. Qoraalkayga haddaan halkan imaado waxaa loo yaqaanaa the character. Qoraalka hortiisa ayaa loo yaqaanaa. Hadda waxaan isticmaalayaa backspace ayaan isticmaalayaa. Backspace-ku wuxuu wax u tiraa asaga to left qaybta bidix ayuu wax u tirayaa. Waxaad aragtaa your and I sida hal ayuu u tirayaa. Hadda waxaan rabaa tusaale ka soo qaad contained inaan hal mar tirtiro waxaan qabanayaa control waxaad la qabanaysaa backspace original to sidaas waxaa la yiraahdaa marka word inuu u daleedo. Haddii backspace kaliya aad isticmaasho inaad wax aad u daleedo kaliya wuxuu u tirtirayaa letter laakiin haddii aad control-ka aad la qabato wuxuu u tirayaa backspace-ka word ayuu u tirtirayaa. haddana waxaan u gudbaynaa ereyga delete ah. Delete sida wax u daleeda asagana. Delete markaad rabto inaad wax aad ku daleeso after waxaad tagaysaa the character qoraalkaada hortiis ayaad tagaysaa. Kadib waxaad isticmaalaysaa delete waxaad aragtaa qoraalka inuu u tirayo to the right qaybta midig. Before ayaan tagayaa before qaybta wuxuu u tirayaa qoraalkaada marka midig. Halkanna waa after halkanna waa before. Hadda marka waxaan rabaa delete haddaan isticmaalo waa ka caadi u tirayaa. Bal haddaan halkan imaado aan delete aan taabto wax istiraya malaha. Sababtu maxay tahay halkan waa after kadib halkanna waa before. Delete halkan ayaa loogu talagalay qoraalka gadaashiisa ayaad tagaysaa sida wax u daleedo. Sidaas la eg haddii aan control delete aan isticmaalo wuxuu u tirayaa word coordinate with the overall of wakaas sidaasna waxaa u baratay hadda sidii loo isticmaalayo. Sidaan hadda waxaan ku baranay sidii loo isticmaalayo waxyaabaha loo isticmaalo delete iyo backspace. Cashirkeena labaad ciwaanka saddexaad aan ka qaadanayno waxay tahay how to use sida loo isticmaalo redo iyo undo. Redo iyo undo waxaa loo isticmaalaa horta redo waxaa loo isticmaalaa adigoo qoraal qoranayo. Tusaale waxaan qorayaa hadda aniga waxaan ahay arday jecel waxbarashada. Qoraalkan ayaa hadda si kama ah ayaa waxay iga dhacday farta waan iska daleeday ama wuu iga daleeday. Waxaan u baahanahay qoraalkii inaan soo ceshto. Waxaad isticmaali kartaa undo. Undo-gu 2 siyaabood ayaa loo isticmaalaa. Mar waxaad isticmaalaysaa shortcut marna waxaad isticmaalaysaa xaraf quick access toolbar ka saaran. Midda shortcut-ka aan ku hormaro waxaad taabanaysaa control Z
qoraalkaadii wuu kuu soo laabanayaa. Sidaas la eg haddii aad isticmaasho halkaani oo xarafkan aad ku dhufato undo ayaa la yiraahdaa. Kadibna markaa kila ku siiso qoraalkaadi ayaa kuu soo laabanaya. Sidaas hadda marka waxaan ku fahamnay sida loo isticmaalo undo qoraalkii kaa tirtirmay inaad soo celiso. Qodobka kale ku xig wuxuu yahay marka redo. Qoraalkan anigu hadda aan soo celiyay waan ka maarmay oo uma baahni oo waxaan rabaa shaashadani meesheeda cadaanka inaad ku celiyo. Waxaad isticmaalaysaa Control Y ama halkan ku dhufo undo soo dheh kana ku celi haddana waa asagana redo. Qoraalkaadi halkaasi ayuu kaga baxayaa. Fadlan subscribe saar haddaad ku cusub tahay channelkayga. Gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena dambe. Una share gareeya asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan.